بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي لهانتين باخيارتا سيدا توسكا ودا نوغا داونaysa ay kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga STN oo hadahan oo kala si toos ah uga daawataan muuqbayaha STN alaaba barnaamijka waxa idin la soo codsiyaalkan idin ka soo diyaariyay anigoo Cabdulqaadir Maxamed barnaamijka intuu hawada ku jira waxa kaamirada iyo farsamada iga saacidi doona saaxiibkay Ben haddii aan idin kormaro qodobada aan caawa ku falanqeyn doono barnaamijkeena intuu hawada ku jiro hadduu eebba weyne raalli ka noqdo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay aqalka golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin kala duwan ka bixiyay waxqabadkii ay xukuumaddiisu ku tallaabsatay boqolkii maalmood ee ay xukuumadda Soomaaliya intii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa ay qabatay isagoona shaaca ka qaaday in waxyaabo badan ay u qabsoomeen muddadaasi warbixino dheeraad ayaan dabcan idinka haynaa sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeen intuu hawada ku jiro qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen warbixinta uu ra-iisul wasaaraha dalka u soo gudbiyay baarlamaanka iyagoo qaarkood ay dhaleeceyn baan u jeediyeen xukuumadda iyo sidoo kale madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday ee mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka kuwa kalena ay taageero buuxda u muujiyeen sidoo kalena warbixinta ra-iisul wasaaraha ay ku tilmaameen inay tahay abid ra-iisul wasaarihii ugu nasiibka badnaa dabcan Soomaaliya ee muddo 100 maalmood oo waxqabadkii u qabsoomay u soo gudbiya baarlamaanka dalka sidoo kale waxaad maqli doontaan maanta waxa ay ku beegan tahay 56 sano guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay ciidamada badda dalka Soomaaliya iyadoo munaasabad lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ka soo qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya warbixin dhameystiran ayaan udideedana idinka haynaa munaasabadaasi ciidamada badda dalka ee lagu qabtay magaalada Muqdisho sidoo kale waxaad maqli doontaan wasiirka wasaaradda shaqada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kulan ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay sida ay muhiim u tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo furo kulliyada lagu baranayo farsamada gacanta iyo xirfadaha kala duwan si buu yiri shaqaale la'aanta dalka ay wax uga qabato sidoo kale waxaad maqli doontaan hadduu eebba weyne raalli ka noqdo intuu barnaamijka hawada ku jiro khilaafka ka taagan arrimaha dalka doorashooyinka ku saabsan kuwaasoo dhowaan madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee waqti uu ka dhamaaday uu 15 bishan aan ku guda jirnay Febraayo uu magacaabay ama uu shaaca ka qaaday in kulan ay isugu iman doonaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka Soomaaliya waxaana shirkaasi ka yimiday muran badan kadib markii maamulada Jubbaland iyo Puntland ay ku baaqeen sidoo kalena ay soo dhaweeyeen in shirkaasi la qabto balse goobta uu madaxweynuhu u calaamadeeyay oo ah magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland aysan dabcan lagu qaban karin oo loo wareejiyay shirkaasi magaalada caasimadda ee Muqdisho si ay uga soo qayb galaan bay yiraahdeen madaxda iyo sidoo kale saamilayda dalka Soomaaliya oo ay dabcan ula jeedeen musharaxiinta iyo dabcan gudoomiyaha aqalka sare oo muddooyinka ugu dambeysay codsanayay inay ka qayb qaataan arrimaha masiiriga ee looga hadlayo doorashooyinka dalka qodobadaas iyo kuwa kale ayaa dabcan ku maqli doontaan ama ku daawan doontaan barnaamijkeena bandhiga STN intuu hawada ku jira saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilaabay magaalada Muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta uga warbixiyay golaha shacabka waxyaabihii u qabsoomay boqolkii maalmood ee xukuumadda uu ku saleeyay ama ku saleysnayd baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka Soomaaliya gaar ahaan waqtiga lagu jiro xilliga doorashooyinka dalka iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay boqolkii maalmood ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golihiisa wasiiradu ay wada shaqeynayeen haddaba ra-iisul wasaaraha oo golaha baarlamaanka dalka uga warbixinayay boqolkaa maalmood waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabadihii dabcan xukuumaddiisa hor yimidba waxaa hadaladiisii ka mid ahaa ugu horeyn waxaan uga mahadcelinayaa guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh inaad ii ogolaateen in aan idin hor imaado si aan warbixin kooban idinkaga siiyo waxyaabihii ii qabsoomay xukuumadda boqolkii maalmood ee la soo dhaafay barnaamijkii ay xukuumaddu u soo bandhigtay golaha shacabka bishii Oktoobar 24keedii 2020 wuxuu saldhig u ahaa qorshe howleedka xukuumadda oo ay soo diyaariyeen golaha wasiirada markii ay waajibaadkoodii guda galeen barnaamijkii xukuumaddu wuxuu qeexayay arrimaha hortabinta u leh sida dardargelinta doorashooyinka sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga doorashooyinka horumarinta cadaaladda
dhab u heshiisiinta dowlad wanaagga la dagaalanka musuqmaasuqa kobcinta dhaqaalaha tayeynta adeega bulshada iyo xakamaynta masiibooyinka sida caabuqa covid-19 ayaxa abaaraha iyo fatahaadaha barnaamijkii ay xukuumadda golaha sharafta leh u soo gudbisay wuxuu ku qotomay qorshe 100 maalmood oo hortabin u leh xukuumadda buugyaradii liidin qaybiyey waxaa lagu soo koobay waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood ee ugu horreeyey waxaadna ka heli kartaan qoraallo faahfaahsan oo ka hadlaya tallaabooyinka aan qaadnay si looga dhabeeyo hiigsiga iyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed qorshaha 100 maalmood waxa uu ku salaysnaa baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka gaar ahaan waqtiga lagu jiro ee xilli doorasheedka ah kaasoo u baahan karti iyo dadaal dheeri ah xildhibaanada sharafta leh mudanayaal marwooyin si loo fududeeyo wada shaqaynta hay'adaha dawladaha iyo xisaabtankooda waxay xukuumadda wasaaradaha u qaybisay 4 tiir oo kala ah kow tiirka siyaasadda loo dhan yahay oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha halbowlaha u ah taabagelinta hannaanka dowladnimada ee dalka iyo arrimaha siyaasadda labo tiirka horumarinta dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin wasaaradaha ku shaqada leh wax soo saarka iyo horumarinta dhaqaalaha saddex tiirka amniga iyo cadaaladda oo ay hoos yimaadaan wasaaradaha iyo hay'adaha ku shaqada leh ammaanka cadaaladda afar tiirka horumarinta arrimaha bulshada ay ku urursan yihiin wasaaradaha bixiya adeegyada bulshada isla markii ay xukuumaddu howlgashay waxa ay golaha wasiiradu yeesheen banbax 3 maalmood ah oo ay ku qorsheynayeen howlaha la qaban karo 100 maalmood ee ugu horeeya ee ay ku eg tahay maanta oo ay tahay 10 bisha February 2021 xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin si aan u xoojino isla xisaabtanka daahfurnaanta maamul wanaagga waxa aan wasiir kasta la galay oo la saxiixday ahdi ay ku jiraan dhammaan howlaha ay ballan qaadeen in ay wasaaradoodu ku hirgeliyaan 100 maalmood gudahooda tiir kasta waxa uu u qabsoomay waxa ay ku faahfaahsan yihiin buugyaraha hortiina yaallo oo hore idinkugu qaybiyay sida darteed mar rabo in aan waqti idinkaga qaado laakiin waxaan rabaa in aan si kooban ugu bidhaamiyo kow tiirka horumarinta dhaqaalaha horumarka laga gaaray horumarinta dhaqaalaha waxaa ka mid ah xukuumaddu waxay ku guulaysatay kordhinta dakhliga tusaale dakhligii ka soo xarooday dekedda muqdisho wuxuu sare u kacay 30% 7 milyan 8 milyan ayaa la qaadi jiray bishii November waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600 taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogtayno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada xukuumaddu waxay dardar gelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaamyadeedii looga baahnaa xukuumaddu waxay dardar gelin ku samaysay horumarinta heshiisyada ganacsiga ee laba dhinaclaha ah kuwa gobolka Komeesa heshiiska dalalka Afrika ee ganacsiga xorta ah iyo kuwa caalamiga ugu horeyso hay'adda ganacsiga adduunka WTO xukuumaddu waxay xoojisay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha gaar ahaan wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda jidka weyn ee u dhaxeeya Muqdisho Afgooye iyo kuwa kale tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka waxyaabaha lagu guuleysana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalidda iyo u diyaar garowga masiibooyinka sida caabuqa covid-19 anyaxa abaaraha iyo fatahaadaha xoojinta isdhexgalka bulshada nabadda iyo dhab u heshiisiinteeda oo loo marayo horumarinta isboortiga oo u dambeeyay tartankii ciyaaraha ee dowlad goboleedyada iyo nabadeynta beelaha Soomaaliyeed ee colaadda dhex yaaleen dhamaystirka istiraatiijiyada qaran ee shaqo abuurka diyaarinta qorshaha ilaalinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka 30% ay ku yeelan doonaan haddii Ilaahay raali ka noqdo baarlamaanka 12aad saddex tiirka amniga iyo cadaaladda wuxuu xoogga saaray hirgelinta qorshaha kala guurka amniga qaran kaas oo u gogol xaariga xoreyn dhammaystiran oo dalka ka dhacday iyo dhammaystirka hannaanka cadaaladda iyo garsoorka waxaana ka mid ah
xukuumadda waxay furtay inta badan wadooyinkii xirnaa ee magaaladan aan ku noolnahay ee muqdisho taas oo culays ku ahayd dhaqaalaha iyo isku socodka bulshada caasimadda oo aad markhaati ka tihiin tababaridda qalabaynta iyo howlgelinta ciidamada ka hortagga walxaha qarxa qaabeynta qaab dhismeedka hoggaanka sahanka iyo sirdoonka ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa kaloo ka mid ah diyaarinta qorshaha amniga doorashada 2021 xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan waxaan rabaa in aan wargeliyo shacabka Soomaaliyeed in uu xil naga wada saaran yahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dalka qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqalgelinta amniga iyo deganaanshaha dalka dowladnimadu aan maanta haysanaa waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn oo aad wada ogsoon tihiin waxaana waajib nagu ah in aan wada ilaashanno oo aan ka ilaashanno dhammaan cadowga gudaha iyo dibaddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa uguna mahmaahaya nin aan ku furi doonin iyo ku rarin marka waa inaan ilaashanaa amnigeena afar tiirka siyaasadda loo leeyahay waxaa nooga qabsoomay howlo hortagin u leh xukuumadda ay ugu waaweyn yihiin dardargelinta arrimaha doorashooyinka dhisidda golayaasha deegaanka oo aan ka hirgelinay gaalkacyo galmudug haddana wejigii ugu dambeeyey laga dhaqangelinayo magaalooyinka kale oo ay ka mid tahay Samareeb xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ka qaybgelinta bulshada rayidka ee arrimaha masiiriga ah ee la xiriira doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin sidii aan hortiina ka ballan qaaday xukuumaddaydu waxa ugu weyn oo ay marxaladan laga sugayo waa hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed doorashooyinkaas oo u dhaca si hufan oo xor iyo xalaal ah waxaan dadaal dheer u galnay sidii loo xaqiijin lahaa doorashooyin la isku raacsan yahay waxaan geed dheer iyo geed gaaban u fuulnay sidii aan waajibka naga saaran u gudan lahayn isla markaan u dhaqangelin lahayn doorashooyin la isla ogol yahay waxaa maragma doonta ah inaan safarro ku tagnay dowlad goboleedyada qaar inta shir oo aan la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada siyaasiyiin kale bulshada rayidka ah si aan isugu soo dhaweyno arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka sida aad ogtihiin iyadoo laga qaadayo go'aanadii hordhac ahaa ee lagu gaaray shirarkii Dhuusamareeb 1 2 iyo 3 laguna soo gunaanaday magaalada Muqdisho 17 September 2020 waxaa golaha wada tashiga qaranku ku heshiiyeen mabaadi'da guud ee doorashooyinka dalka heshiiskaas waxaa kulan wadajir ah ku ansixiyay labada aqal ee baarlamaanka federaalka 26 September 2020 habraacyada heshiiska doorashooyinka ayaa lagu qeexay qaabka doorashooyinka ergooyinka deegaan doorashada qoondada haweenka iyo in doorashooyinku ku dhacaan waqtigooda sidoo kale golaha wada tashiga qaranku waxay 1 Oktoobar 2020 soo saareen habraaca iyo muhiim ah oo ah dhaqangelinta doorashooyinka kaas oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka deegaan doorashooyinka adiin sheega asteynta kuraasta golaha shacabka iyo hanan u gaar ah doorashooyinka Soomaaliland waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka wax dooranaya iyo deegaan doorashooyinka ka horumarsan yihiin marka loo barbardhigo doorashooyinkii 2016-17 taas oo gogol xaar u ah in hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala raali ka noqdo 2025 ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah iyadoo daahfuran iyadoo duruufo adag lagu jiro isla markaana aan ogsoonahay waajibka gaarka ah ee naga saaran in aan doorashooyinku ku dhacaan waqtigoodii waxaan qaadanay tallaabooyin ku qotoma hirgelinta heshiiska 17 September 2020 si loo fuliyo heshiiskaasi waxaan qaadanay tallaabooyin muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka labada aqal annaga oo magacaabnay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka la tashiyo ballaaran kadib waxaan noo suurta gashay magacaabista guddiyada doorashooyinka heer federaal kuwa dowlad goboleed inta heshiisku dhigayo iyo ay xukuumadda magacaawdo
kuwa maamulaya doorashooyinka Somaliland banaadiriga iyo guddiga xalinta khilaafaadka xukuumaddu waxay kaloo dejisay qorshaha amniga doorashooyinka iyo miisaaniyadii loogu talagalay in lagu fududeeyo habsami u socodka doorashooyinka waxyaabahaas oo idil waxay muujinayaan sida aysan marnaba xukuumaddeedu uga gaabin in dalka hore loo dhaqaajiyo la xoojiyo dhaqanka dimuqraadiyadda ee aan ku heshiinay lana joogteeyo dhaqanka qori isku dhiibka ah ee ay Soomaalidu heshiis ku tahay xildhibaanada sharafta leh mudan yaali marweyn 6 bishan February waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda idin faahfaahiyay dadaaladii ay dowladda federaalka ku gashay in ay wadanka ka qabsoomaan doorashooyin xilligoodii ku qabsooma isla markaana uu idin la socodsiiyay tanaasulaadkii iyo dulqaadkii ay dowladdu muujisay si ay u qanciso cid kasta oo wax tabanaysa sida aad la socotaan aniga iyo xubno kamid ah xukuumaddeeda waxaan safarro shaqo ku tagnay dowlad goboleedyada qaarkood annagoo kulamo la tashiya la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed Puntland galmudug qaar kamid ah siyaasiyiinta iyo hoggaanka bulshada rayidka kulankii ugu dambeeyay ee Samareeb 4 madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay ku bixiyeen dadaal aan la soo koobi karin iyadoo ay dowladda federaalka ay ka muujisay tanaasulaad badan waxyaabihii la isku hayay haddaba waxa laga maarmay in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 17 September 2020 xildhibaanada sharafta leh mudan yaali marweyn waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka anigoo xoojinayo shirkii wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15 bishan February ugu dambeyn waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsanay innaga oo intaan ka Itaaliyar maanta waxaan haysanaa dhammaan aqoontii kartidii niyaddii aan doorasho ku gali lahayn sida aan hortiina hore uga ballan qaaday waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah xukuumad ahaan waxa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan xalaal ah la isla wada ogol yahay waxaan hortiina ummadda Soomaaliyeed uga cadaynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabada ah ay hor yaalla ka wareejino fududayno cidda u xil saaran u madax bannaanaato awood siino guddiyada doorashada iyo hay'adaha kale ee shaqada ku leh waxaan ku dardaarmayaa isku duubni walaalayaashii Soomaalida iskaashi wada shaqayn wanaagsan waxaan ku dardaarmayaa idinkala dardaarmayaa walaalihii xildhibaanada ah in qof kasta oo muwaadin ah kaalintiisa ka qaato marxaladan kala guurka ah waa mahadsan wagaakaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo maanta khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay aqalka baarlamaanka ee dalka Soomaaliya isagoo ka warbixiyay waxqabadkii iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu qabsoomay boqolkii maalmood ee xukuumaddiisu ay jirtay sidoo kalena la dardaarmay bulshada Soomaaliyeed iyo baarlamaanka dalka uguna baaqay in laga wada shaqeeyo sidii looga gudbi lahaa arrimaha kala guurka ee ay u horeyso doorashada dalka Soomaaliya isagoona sheegay in xukuumaddiisu ay ka shaqeyn doonto sidii loo fududeyn lahaa shirka 15 bishan uu madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku baaqay in la isugu yimaado magaalada Garowe kaasi oo haddaba ay hareeyeen murano la xiriira halka lagu qabanayo iyo sidoo kale dadka dabcan ka qayb gali doona balse wali dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan wax wara ka soo saarin oo rasmi ah oo ku aadan hadallada ka yimid Jubbaland iyo Puntland وهاجا قولي واحد دعونا سام برنامج كه أنت إنك كبحين خطبة رئيس الوزراء برلمان كجمهورية فدرال كاي الصومالية أيها واحد أيمانتا warbaahinta Soomaaliyeed afaafka hore aqalka baarlamaanka dalka uga warbixiyeen sidii ay arkeen khudbadda uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kula dardaarmay una jeediyay isagoo kaga hadlayay waxqabadkii boqolka maalmood ahayd ee xukuumaddiisu ay qabatay ayaa waxa xildhibaanada qaarkood ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen warbixintaasi iyagoo qaarkood dawladda ku taageeray waxa ay u soo bandhigtay sidoo kale halka xildhibaano qaarna ay sheegeen in gebi ahaanba xukuumadda iyo sidoo kale madaxweynaha dalkuba ay ku fashilmeen inay dalkan Soomaaliya samata bixiyaan iyagoo cuskanaya muranka la xiriira arrimaha doorashooyinka
haddaba xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya qaarkood oo warbaahinta la hadlay aragtiyadooda kala duwanna ka dhiibtay khudbadda ra-iisul wasaaraha iyo xaalka guud ee siyaasadda dalka soomaaliya uu maanta marayo ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa. saa ula socoteen badde maanta waa daawanaysa idinkoo nala joogteen markhaati baad nagala ahaydeen hortaminta koowaad uu la siiyey barnaamijka mataqaana uu soo hordhigay warbixintii boqolkii beri oo runtii aan 100 sano la dhihi karo oo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya roble uu keenay golaha mataqaana shacabka soomaaliyeed waxay tahay first of its kind waxa ugu yiraahdo qalaad waxay ugu horeeyeen noocaas oo kaleeta ra-iisul wasaare keena 100 maalin annaga dowladda ku soo jirnay xataa maysan naga suurtagelin inaan ma sheegi jirnay barnaamijka ka samayn jirnay laakiin sida maanta Jaanisku u soo gudbiyey ama u keenay ama u soo qudbiyey hore uma aysan dhicin taa waxay muujinaysaa tafaasiisha cad ee laga bixiyey waxqabadkii 100kaas maalin oo weli cariiriga ah oo lagu jiray shirar muhiima oo looga hadlayay mataqaana masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo doorashada xilligeeda lagu jiro oo laga shaqeynayo wasaaraha wuxuu cadeeyay in ay isku geeyeen xoogooda amniga arrimaha bulshada dib u dhiska dalka iyo doorashooyinka waad garan kartaa marka in gobolladii uu soo maro dhan uu kala hadlayay si loo horumarin lahaa loogana gaari lahaa doorasho ummadda Soomaaliyeed u dhacda oo si nabada oo wada jir ah oo walaaltinimo ah oo wada ogola inay uga dhacdo wax walba oo jira laakiin haddana wada dhabacda si u kala sarreeyaan baa loo kala qaadaa prime minister maanta wuxuu cadeeyay in barnaamijkaas uu mar walba uu hortimidiisa leeyahay muhiimadiisa gaarka ah ee laga maarmaan tahay in aysan waddanka noqonin meel firaaq ah oo ay doorasho ka dhicin wayna ka dhacaysaa haddii Ilaahay raali ka noqdo wasaaradii golihiisa wasiiradana way ka shaqeynayaan wuuna ku oversight-keedii uu meel marinayay macnaheedu korjoogteynta oo ku lahaa wasiir walba iyo shaqo walba uu howl walba uu qabanayo uu meel marinayay warfaafinta ama warbaahinta dalka iyo wariyaashiina gaarka u marayn maayo aniga inay cunaqabateen haba yaraatida hayso u marayn maayo mana jirto markii mana dhicin inta dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo ay timid cunaqabateen la kor saaray wasaaradda mataqaana warfaafinta liskuma dhaw keliya tan qaranka ay leedahay qolo kasta oo warbaahinta ka shaqeyso oo dhan waad aragteen social media waa maftuux waa open qof walba mataqaana u yahay mataqaana inuu u furan yahay qof walba uu madax bannaan yahay qof walba ayuu siinaa opportunity-ga inuu ka hadlo dalka markee mararka qaarkood mucaaradka constructive-ka wax u dhisaa mar hadduu wax dhisaayana waxaa fiican in mataqaana barnaamijkiisa la qaato sida ay tahay loo qaato wayna qaataa dowladda mar hadday qaadanaysana waxaan u aragnaa inuu yahay constructive mataqaana dialogue oo furan oo laga maarmaan ay tahay in la meel mariyo horta mid waa ogaanaysaan oo waddankan waddan dimuqraadi waaye waddan parliamentary waaye dimuqraadi marka la leeyahayna waxa weeyaan qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay inuu si xor ah u hadli karo inuu si xor ah wuxuu doono u samayn karo wax aanan ahayn wixii ka hor imaanaya marka shariicada islaamka iyo shuruucda xeerarka dalka u yaala xuriyadda qofkana mar kastaba waxay ku eg tahay halka qofka kale xuriyadiisa waxa weeyaan ay ka bilaabato walaalaha mucaaradka ah waa soo dhaweynana aragtidooda waxaan u aragnaa inay yihiin muraayadii wax saxaysay laakiin mucaaradka waxaan rabnaa inay noqdaan mucaarad xikmad waxa weeyaan ku dhisan mucaarad akhlaaq ku dhisan mucaarad qiyam ku dhisan mucaarad aragti wanaagsan ku dhisan mucaarad ku dhisan qiimeynta dalka iyo wadciga siyaasadda waxa weeyaan uu ku sugan yahay aragtidoodana si xur ah ayay runtii waxa weeyaan u cabiraan waxyaabaha anshaxa ka baxsan bas in la iska ilaaliyo ayay ku fiican tahay cid maanta cid caburinayso ma jirto saxaafadiina waa kana daraad waa joogteen maantana waa joogtaan waana tabiinaysaa haddayba jirto meel ay dimuqraadi ay ka jirto iyo xuriyatul qowl ay ka jirto magaalada muqdisho ayay ka jirtaa oo caasimadii waxa weeyaan dalka ah baarlamaankana waxa loo sameeyay waxa weeyaan waa marjac marka ugu horeysa waa hay'adda ugu sareysa ee sharci dejinta waa meesha lagu kala baxo waxa lagu kala baxayna waa aragti qofkii waxa weeyaan 100 baarlamaan haysta iyo 1000 haysta iyo wuxuu sheegtaba waxaa laga rabaa inuusan dhagax badsanin uusan ku dhagax badsanin khaylo uusan ku dhagax badsanin personal attack iyo aflagaada iyo qofka xataa qiimtiisa ay waxa weeyaan dilaysaa waxaa loo baahan yahay marka isagoo aragtidiisa xur ah ayuu baarlamaankan imaanaya uu ka hadal jeedinaya baarlamaankana kala saarayo codad ayaana lagu kala baxaa oo majority ayaana lagu kala baxaa ama 50+1 noocay noqotaba marka horta in aragtidaas la ixtiraam waa muhiim waxa kaloo muhiim ah dalkan horta waxa weeyaan waxaa leh Soomaaliya iska Soomaali iyadaana go'aan ka gaarayso aayaheeda dalka waxaa ceeb ah marka
in madaxweynihii dalka uu leeyahay annagaa wada hadlayno annagaa aayaheena ka talinayno annagaa masiirkeena waxa weeyaan ka doodayno meelna isla dhigayno shisheeye yuusan na soo dhex fadhiisanin laakiin xalaya ugu dambaysay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa waxay leeyihiin beesha caalamka waa inay waxa weeyaan goobjoog ka ahaataa saamileedana waa inay goobjoog ka ahaataa beeshii caalamkan iyadaa leh UNSC United Nations Security Council UK Norway Department of State gabigooda waxay wada leeyihiin Soomaaliya idinka wixina leh idinka xalsada iyagiina waxay leeyihiin soo fariista beeshii caalamka waxay leedahay annaga ma soo fariisanayna idinka isxaliya marka waxa weeyaan waa wax ayaan dar ah annaga inaan isxalina waxa weeyaan loo baahan yahay midda labaad saamiley waxaa cidii 17 September fadhiday heshiiska saxiixday ansixisay saxiixday ayaa iska leh oo ah maamul goboleedyada oo ah muxuu ahaa baarlamaanka labadiisa golaha shacabka iyo aqalka sare iyo xukuumadda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u saxiix intaas horta saamileyda rasmi ah saamileyda kale oo la sheegayo ama ku dhex qarsoon magaca xisbiga waxaan ka hadli doonaa markii dalka uu gaaro axsaab siyaasadeedna waxay imaan doontaa markii qof iyo cod la gaaro laakiin suuragal ma aha doorasho dad banaan rabaa haddana waxa weeyaan xisbiyaan ahay haddana waxa weeyaan saamileyn ahay waxa weeyaan wax suuragal ay ma lahan walaalaha waa soo dhaweysteen September hadda waxa loo taagaya wax kalmaba yaalaba waa fulin haddii lagu soo heshiiyo waa in leeyahay marjiciisan waxa weeyaan waa baarlamaanka federaalka Soomaaliya wadis go'an ayaana waxa weeyaan caqliga isagaas lagu kala baxaya isagaas waxa xalkiis wadanayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya aad iyo aad aan u mahadcelinahay ra'iisul wasaare Roble oo muddo u fadhiyay waxa weeyaan magaalada Garowe inuu waxa weeyaan wax ka keeno waxaan ku soo gabagabeynayaa marka maamul goboleedyadii markii hore waxa weeyaan ay soo dhaweeyeen waa la socotaan heshiiskii inay ku farxeen tanaasul kadib oo halkan xamarna xaflad loo dhigay gobolada markay ku noqdeen waxa weeyaan ay soo dhaweeyeen ergadiina waxa weeyaan wuxuu ahaa kaga qayb qaadanaysay commissionka ama committee-ga electionka kaga qayb qaadanaysay waa ay soo direen halkaas waxaa ka cad processkii waxa weeyaan inuu bilowday processkii uu socdo marka waxba kama jiro iyo hebel aan dhacay madaxweynaha baarlamaanka dhalay baarlamaankan hadduuba joogo madaxweynahan waxa weeyaan waa uu joogaya baarlamaankan markuu meesha ka baxo annaga baarlamaankan aan ku wareejino walaalahayna rabnaa inaan fursad in la tartamaan rabnaa inay saaki doorasho dhacdaan rabnaa fursad aan siino madaxweynaha imaan doona haddii isaga uu ku guuleysto mar labaadna ahlan wa sahlan haddii isaga uusan ku guuleysaninna waxa weeyaan cidda ku guuleysataa waxa weeyaan uu hambalyeelayaa laakiin wax la yiraahdo firaaq dastuuriya waxa weeyaan ma jiro halkaasaan ku ansixinay waxa kaliya loo baahan yahay waxa waa dadka inay is og yihiin waxay sheegayaan isla markaana ay og yihiin waxay rabaan aad iyo aad u mahadsantiin Soomaaliya ha guuleysato waa aad iyo aad u mahadsantiin maanta u jeedin waxa yimid ra'iisul wasaarihi khudbadiisu wuxuu ku soo gabagabeeyay inay waxba qaba waayeen saas daraadeedna dadka Soomaaliyeed ay tala ka rabaan madaxweynaha waa dhageysateen maalin khudbadiisii warkiisu wuxuu ku soo gabagabeeyay tala gacanta kuma haayo dowlad goboleedna waa ka soo qoostay waa ogtiin shalay haddana wuxuu soo tuuray Twitter oo leeyahay shirba waxa lagu qabanayaa Garowe isagoo wada tashi sameyn taasoo dhan waxay ku tusinaysaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtigiisu ku dhamaaday 8 Febraayo uusan dalkan sharcina ku joogin tala oo hayanaysan jirin oo ku qabto doorasho haba yaraatee waxaan rabaa tusaale yar idin soo qaat haddii qof xataa hotel dego oo laba habeen lagu yeesho xataa labada habeen lagu yeesho kama seexa kariyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo habeenkii saddexaad u socdo oo madaxweyne dalka ahayn madaxtooyadu dhex jooga taliska ciidamada rabaa inuu amar siiyo wuxuu rabaa xukuumadda inuu tala siiyo waa nin madaxweynaha sharciyada ay ka dhamaatay madaxweynimada meesha kuma hayo dalka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ogeysiino Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalkan wuxuu ka soo noqday prime minister wuxuu ka soo noqday madaxweyne afartiisana waa soo dhamaatay wax sharciyada oo dalku ka haysta ma jiraan beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa sharciyada hala ilaaliyo sharciyada in la ilaaliyo waxay ka bilaabanay inaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax amar loo qaadan dalka haba yaraatee inaan ciidamadu ka qaadan inaan safaaradu ka qaadan inuusan dalkan wax sharciyada uusan ku joogin saas daraadeed talada dadka Soomaaliyeed waxay gacantooda ku jirtaa madaxda dowlad goboleedyada madaxda baarlamaanka iyo dadka loo siyaasadda danaya sida musharaxiinta saas daraadeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madax kama ah dalka Soomaaliya حقنا أملا إنه في الصومالي كجرا سعادة من كده بيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وحن ربعنا كالله أنا وحن كسور جدا دور شدة بمحلاي وحواي أمدنا والد دالي وسمراب 1 2 3
hadda garow hal la aado taasaan ka soo horjeedaa waxa waaye wax doorasho dad ma lahay waddanka ma hal cod hal qof loo baxaa baarlamaankaana wax dooranaya madaxweyne cusub ay dooranayaan guddoon cusub ay dooranayaan annaga filan in loo dhigo ma aha mar walba hawsha xukuumadda lahayd waxaa qabanooya beesha caalamka qabanooya James Iswaana qabanooya iyo mamuuta qabanaya xukuumadda hawsha ay lahaydba ma qabanayso markaan saas daraaddeed doorashadii dadbaneed waa ku fashilmeen ani hadda kor dadkii u codeeyay hal cod hal qof ahaa waxaan rabaa waddankan si xalaal ah baarlamaankan inuu wax doorto wax haba yaraatee la dhahay maxaa la dhahay shir dambe oo lasu imaanayo garowga muqdisho iyo dhuusamareeb waa dhammaatay ummaddan ayaa lagu cayaarin mar walba banooni yaan noo dhigin meel annaga siyaasad kalaa la wataa faragelin shisheeyaa jirto hadalkayga waxaan ku soo gabagabaynaa haba yaraatee wax doorasho dadban ma jiro dowladdan iyo xukuumaddeeda waa shaqayn waayeen waxaa shaqaynaya ra'iisul wasaare ka ama madaxweyne ka waddankan waxa waaye mamuuti iyo maxaa la dhahay iyo ninkii la dhahay James Iswaan waay xaqiiqda jirtaa idin sheegaa shaqadooda waa gudan waaye qofka hadduu shaqadiisa gudan waaye in la bedelo waaye waxa wax bedelaayeen annagu waaye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waagaa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo aragtiyo kala duwan ka dhiibanaya xaalka dalka Soomaaliya uu hadda marayo iyo khilaafyada hadhayay doorashooyinka dalka Soomaaliya sidoo kalena waxba kama jiraan ku tilmaamay inay xukuumadda dalku ay ku fashilantay waxyaabihii dabcan boqolkii maalmood ee ay maamuleysay ay soo bandhigtay xildhibaanada dalka ayaana ku kala aragti duwanaaday habka iyo sidoo kale shaqada ay dowladda federaalka ee Soomaaliya u maareyso muddooyinka ugu dambeysay guud ahaanba shaqooyinka dalka Soomaaliya وهاجا قيبه ده برنامج كبندق STN أياد أولي لا سعوتان وحنا ستة وسيد كجاي من أيها حارة ده TV وكل هاي مقالة نيروبي مركز نادية إنه إسلا ورك مقدشة كوزي سعنو مسؤولين كلا دوان أو كثير سنة إذا ماذا دلك الصومالي يسيدو كله وزارة الجاشان ديك دلك أيها وح أي كقيب قلنا سنة جوردي كنتن اللحاد إذا ماذا بدأ دلك الصومالية iyadoona mas'uuliyiinta kala duwanaa ee ka qayb gashay kulankaasi ama munaasabadaas lagu xusayay maalintii ay la aasaasay ciidamada badda dalka Soomaaliya ay sheegeen in ciidamadaasi ay muhiim u yihiin dabcan waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka mid yihiin dalka Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay in ay yihiin oo kuwo dib hadda waqti xaadirkan u soo kabanaya marka la fiiriyo sida ay dawladda dalka uga shaqeynayso arrimaha la xiriira sidii loo soo celin lahaa kaalintii ay ciidamada badda dalku ku lahaayeen ciidamada qalabka sida dalka Soomaaliya haddaba mas'uuliyiinta kala duwaneed ee goobtaasi ka hadashay iyo sidoo kale dabaaldegyadii ay ciidamada dalku ee qaybta badda ay sameynayeenna ku soo dhawaada maanta aad bay noo farxad gelinaysaa inaanu munaasabada tan aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii asaaskii ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya oo laga joogo 56 guuradii ka soo wareegtay asaaska waxay maanta marka farxad noogu tahay in la kala soo qayb galo ay nagala soo qayb galaan madaxda annagoo uga mahad celinayna sida ay noogala soo qayb galeen waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin waa la socotaan taariikhda ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya waa taariikh soo jireena maaha wax maalin ama saacado ama muddo lagu soo koobi karo awoodda uu lahaa ama waxyaalaha uu difaaci jiray meelaha ugu muhiimsan ee uu ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ma ahayn ilaalin kaliya wuxuu ilaalinayay khayraadka ummadda Soomaaliyeed wuxuu kaloo ilaalinayay in xuduudaha uu leeyahay uu sugo ilaa raas Kamboni ilaa Saylac waxaa deganaa ciidamada badda oo ay ku lahaayeen baysas oo meel walbana uu ka joogay ciidan waxaa jiray ilaa 4 saldhig oo ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ay lahaayeen oo ku kala yaalay Berbera Boosaaso Xamar iyo Kismaayo waxaan rajaynayaa haddii Allah awood la idmo haddii burbur dhacay ciidamada badda Soomaaliya de waxay ka qayb qaateen burburkii dhacay laakiin waxa Ilaahay mahadiisa in dawladda hadda jirta ay awoodda saartay inay tayeenta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed ay u soo jeesato si ay dalkooda u hanan lahaayeen
waxaan markaa ay ka mid tahay waxqabadkii dowladda ee uu madaxda ka yahay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo runtii aad iyo aad ay uga duwan tahay intii system ama dowlado hore soo maray aysan ciidanku uusan sidaan u dhisnayn maantana aynu ku faanayno inay xuduudaheenna soo celiyaan waa la socoteen oo hadda ciidanka dhulka oo kale guulaha uu ka gaarayo ciidanku badduna insha allah waxaan rajaynaynaa tababarka la soo siiyey iyo sida ay hadda ay loo dhisay inay dhammaan xuduudaha ay la leeyihiin dowladaha hadda iskaga soo ordaya oo waxaan leenahay badda Soomaaliya been bay isu sheegeen dhawaanna waxaan rajaynaynaa inay xuduudihii iyo badda Soomaaliya ay hantin doonaan ciidanka qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya waxaan markaa ugu hambalyeeynaya waa guul soo hoyatay oo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed inaan mar dambe khayraadkooda ama baddooda aan ajnabi uusan ku gorgortamin way soo dhamaatay waqtigii badda Soomaaliya lagu xisaabtami jiray ama khayraadkeeda la guran jiray ama Kenya oo aan dhul iyo xuduud toonna aan lahayn ay badda Soomaaliya tiraada annaga iska leh wax ka jira ma jiraan badda Soomaaliya Soomaali baa iska leh hal taako oo cadow qabsanaya ama dawlad shisheeye qabsanaysaana niyadooda ka saareen way ka dhamaatay waxaan leenahay waxa la gaaray xilligii ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ay dhammaan ka howlgeli lahaayeen dhammaan baysaskii aan sheegay oo ay lahaayeen dowladda Soomaaliya hadday khayraadkeeda tahay la guran jiray inaan mar dambe la guran doonin haddii kontrabaan ama sun ama wax lagu soo yaacin doono inaan mar dambe aysan dhici doonin waana ku filannahay haddii Allah awoodda la idmo dhawaanna waxaan ugu bishaareeyaa shacabka Soomaaliya inay arkayaan ciidan Soomaaliyeed oo baddooda ilaashanaya oo khayraadkooda ilaashanaya oo khayraadka ka soo baxa ay manaafacaadsan doonaan ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed ciidanka badda Soomaaliyeed sida uu u dhisan yahay ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu isaguna u dhisan yahay baddeena khayraad badan baa ku jira khayraadka ku jira waxa looga faa'iideynayaa haddii Allah awoodda la idmo ummadda Soomaaliyeed ciidanku ilaalin kaliya maaha waxay ka qayb qaadanayaan hadda laga bilaabo siday wax soo saar u sameyn lahaayeen oo ay dalkooda ugu soo celin lahaayeen khayraadka badda ku jira aad iyo aad waxaan mar labaad hambalyo gaara u dirayaa ciidanka badda iyo difaaca xeebaha dableyda alifleyda saraakiisha saraakiil xigeenada sareeyaasha xaasaskooda iyo caruurkooda meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay sanad guura wacan waxaan kaloo aan aad iyo aad aan hambalyo ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo noo suurto geliyay in ciidankii badda iyo difaaca xeebaha uu soo noolaado ayna ku hamiyaan inay hadda ay difaacan karaan baddooda Soomaaliya iyagoo kana faa'iideysanaya ilaalinayana waxaan leeyahay aad buu u mahadsanyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ugu soo jeestay aad baan ugu mahad celinayaa waxaan rabaa inaan tahaniyad ama hambalyo aan wakiil uga ahay ciidanka dhulka meelu joogaba aan u diro ciidanka badda uu ugu horeeyo Saree Guuta Cabdixamiid saraakiisha sareeyaasha kale ciidanka badda dhammaan ciidanka badda iyo xaasaskooda sanad guurada quruxda badan ee runtii qalbiyadayada ku abuurtay farxadda oo aanan waayahan arag oo aad soo noolayseen waa idinkugu hambalyeynayaa waxaana idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
hal ciidan oo keligii taagnaan karaa ma jiro oo ciidan ahaan kara. ciidanka dhulku wuxuu u baahan yahay ciidanka cirka inuu hawada ka difaaco, ciidanka baddu inuu badda ka difaaco, ciidanka difaaca cirka oo aan weli la aasaasin inuu asaguna ka difaaco hawada wixii alla wixii uga imaan lahaa. aan rajaynayana wasiirkii gaashaandhigga waa joogaa inuu qorshaha ku darsado ciidankii difaaca cirka iyo taliya xigeenkiiba insha allahu in asagana la asaaso xilliga ugu habboon. ciidamadu marka waa ciidamo isu dheeli tiran oo aan ciidan keligii wax qaban karaa uusan jirin haddii ciidanka kale ka maqan yahay. waxaan ku faraxsanahay anigoo ciidankii dhulka garab istaagga ayna soo garab istaageen oo ay soo dhismahayaan ciidankii badda. insha allah waxaan rajaynaynaa midda ku xigtana ciidankii cirka inaanu u dabaaldegna haddii ilaahay ayagoo soo dhismay. soomaalidu tababar yar bayba u baahan tahayba dhammaanteed baa wada ciidana. waxaan dhegaystaa kuwa dhalinyaraahoo hadda wadamada xurgufta ka dhexeeyay waxay isu sameeyaan ciidamada. marka soomaaliya iyo waddan kale maalin dhoweyta ay isu samaynahayeen waxay yidhahdeen soomaalidu ciidan kayd ah ma lahan, waa beentood. inta diriiska qabta maan inta kaleo dhan waa ciidankayda soomaaliya. tusaale haddaan idin siiyo, waxaa ka warqaba labada wasiirba carruurtooda dibadda ay jirtaa. carruuraha soomaalida oo dibadda ku dhashay bal iska dhaaf kuwa dalka ku dhashay markii ciidda la gaaro haddaad tiraahdo aabba baabuur baan ku gadaa may wuxuu ku leeyahay bastoolada iyo qori ii gad dhammaantood. marka soomaaliya oo dhan baa kayd ah, ciidankayda ah. waxaan ilaahay ka rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kale inaad nabad iyo caafimaad aan ku wada gaarno dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka badda. waxaan rajaynaynaa insha Allah waxaan ka qayb gali jiray oo saraakiishu ogaayeen carbisyo ay dhammaan ciidanku ka wada qayb galaan. carbisku ugu dambeeyay ceelcadu ka dhacay ciidanka badda, cirka, difaac cirka iyo ciidanka dhulku ay ka wada qayb galaan ayagoo iskaashanaya. waxaan soo celin doonaa oo qorshaha noogu jirta inaanu carbisyadii iyo tababaradii ciidanku ka wada qayb gali jireen dhammaan aanu soo celinno. taasu waxay muujin doontaa ama muujinaysaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida ay hanan doonaan ama hanteenba waddankooda difaacaysa insha Allahu shacabka Soomaaliyeedna uu ku seexan doono si nabad. ciidamada qalabka sida waxaad ka tihiin qeyb aad iyo aad muhiim u ah maadaama ciidamada qalabka sida waajibaadkooda sharciga uu yahay inay ilaaliyaan qarannimada, gobonnimada, midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. waa inay ka ilaaliyaan cadowga noocyadiis kala duwan. waa inay ilaaliyaan nafta iyo maalka iyo hantada ummadda Soomaaliyeed. hantadaas ummadda Soomaaliyeed waa hantada qaarna dhulka hitaasha oo dhulka ka mid ah, qaarna badda way, qaarna hawada way. saddexdaas ciidan waajibkaas qaran baa saaran oo dastuuri ah oo ay u dhaarteen
inay gutaan. haddii aan nahay xukuumadda anigoo qaadanayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka tilmaamihiisa aan raacayno qorshaha xukuumad waxaa noo qorshaysan horeyna loo sameeyay haddana meel fiican noo maraya dib u habeynta ciidamada qalabka sida oo ka bilaawatay tirakoobkooda diiwaangelintooda mishaarsiintooda daryeelkooda oo inaan ogaano ciidamada shaqayn kara oo diyaar u ah inay shaqeeyaan waajibkooda gutaan iyo ciidamada kale oo ayagana ayagoo shaqada ku jiro dhaawac mase ma ahee arrimo kale la kulmeen isla markaasna ciidankii ku jira weli laakiin shaqooyinkii gudan karin duruufo ku dhacday waktigii oo ciidanka ayaga u shaqaynaya waxaa waajib eena saaran dowlad ahaan inaan ciidankeena ilaalino aan daryeelno aan xuquuqdiisa aan raadino aan xuquuqdiisa aan helno waxaa kale waajib ohna saaran ciidankii inaan u helno tababarkaas oo gaarhsin karo meeshii ugu sarreysay sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadka sharci ee ciidankaasi saaran ciidamada badda khaas ahaan oo lagu bilaabay 100 askari maantana hadda 100 ka badan ay noo joogaan waajibkii 100kaas askari soo guteen ka badan baa la rabaa in idinkoo hadda cadadkiin uu kasii fiican yahay inay waajibkaas aada gudataan aad ka fikirtaan baaxada ay leedahay badda soomaaliyeed iyo waxyaabaha looga baahan yahay adduunyada waxaa laisku dhaafay qorsho anigu wasaaradda gaashaandhig ahaan anigoo idinla shaqaynayo waxaan diyaar u nahay inaan qorshe cad diyaarino qorshahaas oo lagu dhisayo oo lagu horumarinayo ciidamada badda iyo ilaalinta xeebaha oo awood u leh baddeena inay ilaaliyaan cadowgana ka ilaaliyaan dadka maandooryaalka iyo qashinka ku qubaya baddeena ka ilaaliyaan tahriibka ka ilaaliyaan maraakiibta kalluumaysiga sharci darrada ka ilaaliyaan wax kasta oo hantada aan leenahay bad inay ka hortagaan ciidamo waajibkaas gudan karo inaan helno iyon diyaar u nahay ciidankeeda baddeena waa dhisan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay horumarin anigana waxaan diyaar u nahay ciidanka inaan horumarino waxaan kale diyaar u nahay cid allaa ciddii nagu caawin karto ciidankeena inaan horumarino inaan wada hadalla la galno anagoo iska leh go-aanka kama dambaysta go-aan anagoo leh inaan kala xaajoono wixii laga qaban lahaa wixii laga heli lahaa baddan anigoo dowlad ahaan waajibkeena gudanayno waxaan rajaynayaa insha allahu in ciidankeena qalabka sida guud ahaan meelo fiican uu sii gaaro waxaa laga maarmaan ah marka si hadafkaas yoolkaas aan u gaarno
yoolkaas aan ka hadalnay waxaa loo baahan yahay inaan ku dhaqanno hufnaan, daahfurnaan iyo isla xisaabtan. waxaa loo baahan yahay inaan helno hantida aan leenahay oo ciidanka qalabka sida guud ahaan uu leeyahay iyo hantida ciidamada badda iyo ilaalinta xeebaha inay ahaato hanti la og yahay, hanti uu qaranka uu leeyahay, hanti oo qoran in la helo. mucaawanaadka aan ka helnay beesha caalamka ciidamada qalabka sida waa inaan u ilaalinaa sidii looga tirakalay, isla markaasna hantidaas sida ciidamadaba u tirakoobnay ay u tirakoobnaato. hantidaas markay hallaawdo waa in ayadoo qoraal ah lahaaya hanta dhoorka iyo wasaarada gaashaandhigga iyo cid allaa ciddii hantida dowladda ilaalinayso in ma aragtay ay ka haystaan tirakoob. sababto hantida qaranka haddii la ilaalinin, waajibkii looga tiragalina lagu gudinin, isla xisaabtan iyo daahfurnaana la helin, daacadnimadii oo qaranka lagu dhisayay lama helayo. isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta wuxuu asaas u yahay in ciidan aan helno, ciidankaas oo waajibaadkiisa qaran gudanayo. wasaaradda gaashaandhigga ayadoo mathalaysa xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha diyaar bay idinla tahay wax kasta inay idinla qabtaan, wax kasta inaan idinla qabano, madaxdana wax kasta inay idinla qabtaan baa diyaar u yihiin. waxaa la idinka rabaa inaan helno ciidan dhul oo dhulka ilaalinayo, ciidan bad oo badda ilaalinayo, ciidanka cirka oo hawada ilaalinayo, i dhammaan laisku geeyay ilaalinayaan qarannimadii, gobonnimadii iyo midnimadii Soomaaliya iyo hantida iyo nafta muwaadiniinta Soomaaliyeed. taasaa la idinka rabaa. fariinta kale aan meeshan ka dirayo, ciidanka qalabka sida cidna duulaanku ma aha, dalkiisuu difaacanaya, dalkiisuu horumarsanaya. waxaan leeyahay ciidanka qalabka sida guulaysta. wagaagkaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo goob fagaaraha kula hadlayay ciidamada badda ee dalka Soomaaliya oo maanta u dabaaldegayay 56 sano guuradii kasoo wareegtay maalintii la aasaasay. intaas ayaan uga soo gudbaynaa dabcan markana haddii aynu Wajeer aadno, Cabdiraxmaan Mucaawiye wariyaha STN uga soo warama ismaamulka Wajeer ayaa waxa uu sheegay in maanta laga furay deegaano hoos yimaada ismaamulkaasi dugsiyo cusub oo ay dadka shacabkii u baahi qabeen. Cabdiraxmaan Mucaawiye soo dhawow, maxaa Wajeer nooga haysaa caawa? tuulada Wajeer Boor ee xigta koonfurta Wajeer ayaa waxaa maanta xariga looga jaray laba fasal oo ay u dhistay dowladda countiga Wajeer, taasoo u soo marisay xafiiska wakiilka aqalka hoose ee deegaanka Ibrahim Urey. xariga jesta labadan fasal ayaa waxa ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay dowladda countiga Wajeer iyo midda dhexe, halkaasoo sidoo kale ardayda ee xilligan wax ku baranaysa dugsigani hoose dhexe ee maanta xariga laga jaray sidoo kalena loogu qaybiyay agabka wax lagu barta iyo sidoo kale boorsadaha lagu qaato buugaagta. haddaba mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay xaraka jaristani ayaa ka hadleen, iyagoona sheegeen in muhiim ay tahay in caruurta tuuladani ay helaan goobo ay wax ku bartaan. Wajeer Boor, assalaamu calaykum. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno furitaanka iskuulkan oo lagu magacaabo Chief Ibrahim Qasim Primary School oo ku yaalo magaaladeenan Ibrahim Urey ama Wajeer Boor South. marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, MCA-gana waan u mahadnaqaynaa. waagii campaign-ka
manifestogeenna countiga markaan soconay governorga aniga wuxuu ahaa in MCA-yaalka mid waliba 30 ward in 25 milyan la siinaa marka lacagihii ayaga ah laga dhisay wanaaggan ayuuna noo qabtay maanta iskuul ayuu halkan nooga noqday marka mheshimiwa thank you very much midda labaad iskuulka macallin Cabdullaahi Maday sidoo inoo sheegaba waa la dhisi karaa laakiin dhisitaankan kali kuma ekaanayso niman waxaa jiro educationka ka shaqeeyana NACONECLDO laba isbuuc ka hore report ay noogu soo gudbiyeen Naivasha waxaanay dhaheen Northeastern taqriiban 50% iyo wax ardayda gaartay in iskuul la geeyo iskuulku ma jiraan mid waxa way xaafadda iska joogo iyo mid xoolo la jiro warantii inaan ilaahay u mahadcelino ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo suurtageliyay in xafladdanaytu daahfurka ama lagu furay iskuulkan cusub aan maanta iskugu imaano waxaan ognahay meeshanaytu in waqti hore deegaan ahaan la soo degay laakiin baahiyo kala duwan ama baahiyaal badan ay jireen ingiriiska wuxuu dhahaa Rome was not built in a day magaalada ugu weyn Europe waxaa ka mid ah magaalada yiraahdo Rome hal maalin lama dhisin maalinba si wax loo dhisay maalinba wax loo dhisay waxay noqotay magaalada ugu caansan adduunka oo u weyn baaxad ahaan ama dhismo ahaan marka anagoo taa ka sii wadayno waxaan deegaanka kadib waxaa ku bilaabatay dhismihii ugu horeeyay dawladda ay ka dhisto oo ah xafiiska chiefka muddo dhisnay kadibna ma arkino tabarucaad iyo waxan baa imaanay baahi kala duwan way jirtay baahi biyo jirtay meel biilaan haday tahay biyaha u muhiimsan waxaad ogtihiin ma arkino in barkada iyo wax la dhisay oo biyaha lagu keedinaayay haddana ay soo socotay warto yaro kama darta la dhaha meeshan intuu anigana aan ka faaqay aniga ugu mahadcelinayo chief of education saaxiibkay Waydaan oo waagaas intuu wata joogay oo arintaas intuu ii dadajiyay inkastoo aan dhihi karo wali waxay ku tahay county government bending bills waxyaalaha lacagta aan la bixinin oo ma arkin oo dadka weynaha ay qabteen hawsha ay qabteen ayaa warta ka mid tahay ilaa hada yoom lacagteeda lama bixinin laakiin kama naharsanin in lacagteeda la helo insha Allah waxaana ballanqaad ka haysanaa in lacagtaas ay sida ugu dhaqsaha badan la bixin doono kadibna insha Allah waxaan guda galnay baahida kale oo waxbarashada waa ogtihiin meesha iskuulka ma jirin asaaska u hore iskuulka wuxuu ahaa ECD wax la yiraahdo early childhood education oo labadan class aniga soo martay lacagteeda wax la yiraahdo word base aan ka dhisay iyo labada masqul oo meesha ku taalo kadibna ku deesho lagu dayday daraadeed waxaan hal class ka helnay xildhibaanka laga soo doortay Wajeer South Dr. Omar oo asagana labada halka qolka iyo labada masqul noogu daray kadib hor baa sii socon doona insha Allah baahida way badan tahay hal marna wax laga qaban karo maanta iskuulku waan furnay ilmaha yar korshadu macallin Xuseen uu sheegay dalaadalka oo ma arkino ilaa wadada u dalan doolay Wajeerboor town ilaa Wajeerboor South u kala doolay in horta aan ayaga salka u dhigno ayaga ma arkay waxbarashadoodii gurigooda agtiisa meel ay gaari karaan ayagoo risk galaynin oo iskuulkaas iyo wadooyinkaas iyo bahladeeda iyo gawaarida socota iyo mootaha ordayay iyo ceelasha ay ku dhacayaan inaan ka soo celino ayaga ay bilowdaan kadibna aan hor u sii socono insha Allah waxaan rajaynaynaa in mustaqbalka soo socdo meeshan iskuul idil oo ilaa class 8 ah in ay noo noqoto Ilaahay ma idin waxaan isku daynay ilmihii in ay dhulka fariisanin waxaan u keenay kuraas yar oo ayaga da'dooda la eg iyo miisaska yarka oo ma arkino ay ku dhigan karaan waxa soo dhan oo horumar ah waa ma arkino yar ku gaaraysa dhanka kale waalidiinta ayaa loogu baaqay in ay caruurtooda ay keenaan iskuulkani si ay waxbarasho u helaan caruurta waxaan idin leeyahay hala keeno ardayda iskuulada hala keeno iskuuladana waa run macallin la'aan jirto dhibo badan ay kala kulmayaan laakiin mar walba kaasi ku rafaaday iskuulka wax ka bartay ayaa dhaamaya ninka xoolaha la jiro mar waliba marna isku mid ma noqonayaan marka waxaan jeclaan lahaa waalidka sida la sheegay waxaan rabaa ilma arkin oo iskuulka la keeno ana ma arkin oo ilmaha waqtigooda laga dhuminin oo duururka mise ariga ama xoolaha loo dirin waxbarashada waa iftiinka waaya qofka hadduu wax barto
fahmadiisii iyo aqligiisii iyo fikirkiisii iyo nuurku u ziyaadaya laakiin nin iska waxba baranin oo jahli iska socdo waxa wax cad iyo wax madow ma kala sheegi karo marka sida awgeed waxbarashada nuur waayo yaa ogahay ilmahaneeto dugsi way dhigtaan quraanka way bartaan alxamdulillah haddana in loo ziyaado oo waxbarashadii kale oo maark saakulaga ahay ay sii bartaan aad baan u rajaynaynaa waalidka waxaan ku baraarujinayaa ilmaha iskuulka la keeno ilmaha hadda intii diiwaan gashan konton iyo 250 iyo wax waaye in la soo ziyaadiyo insha Allah la soo kordhiyo sidoo maarkin dad qaar sheegeen ilmo badan baa xaafadaha iska jooga ama ilmo badan baa ari iska raaca ilmaha iskuulka la keen insha Allah si kastaba ha noqotee iskuulkani maanta xariga looga jaray tuulada koonfurta Wajeerboor ayaa ah mid markaasi ay u baahi qabeen shacabka tuuladani ku dhaqan maadaama arday tiro badan ay la doonayo inay wax ka faa'iideystaan amaba ay wax ka bartaan وهاجي وماسي هي عبد الرحمن معاوية أيها وربعنداسي طبعا نوغا صدر اسمام الكوجر وربعنداسي أودن بيسي برامج كبندق استين oo si toos idin kaga imanaya xarunta dhexe TV uu ku leeyahay magaalada caasimadda Nairobi waqtigoon naga yar awis warbixino kale oo dabcan noo soo socodayna uu noo saamaxaynin intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka bandhiga STN anigu Cabdulqaadir Maxamed ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay sidoo kale idin soo diyaariyay been ayaa farsamadii kaamirada si wada jir iga caawinaya aniga asxaabtii kale ee igala qayb qaadatay soo taminta barnaamijka waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh